بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وأنا أحمد عيسى وحن هذا قدامي كحين كلا بعض البرلمان كهير شبيلة أنا وحن كل شيء قبل كهيران دوكسي هو صدحة وحن كوس برتاي قبل كهيران دوكسي سرنا وحن كل ما يستوي بقى على ذا مقدشة يعني وحبر الشذا إذا شام عدنا هذا أنت كل ما يستوي أنت جوبي أنا يرى فريق مثلا ترى يوم حيقول صدق أنا كمان نقضه إن هاي سياسيين تعمل دلك يعني وحترك إن كمان نقضة وصار عضي إن سياسي النقطة مركزية وصار عضي تبدأنا وحنا نقول عيب بربركي وحنا أدنى وقت دولة دين عيب بربرتي ملتري قاعد dadka wuu kala yaacay anigu waxaan kamid ahaa dadkii dhanka Itoobiya aaday waxaan tagay magaalada la yiraahdo wax dheer ee kilka shanaad Itoobiya ilaa walwal farhareeri meel la yiraahdo la dheer ilaa buuhoodle sagaashan iyo sideed waxaan imid magaalada Beledweyne ku dhashay waxaan ka noqday markaa shir meesha ka socday ayaan ka qayb galay كبعدنا وحنا نقضي قريه ولا تشجع حسين حاج بوضع كان نقضي حقيقة أرمها بالشدة أنا حقيقة أرمها بالشدة وحنا تجي يعني عرطة كودي ماي لبادي يكون أيام تجي كودي ماي دولة عبد القاسم صلاح حسن بشير بسودي ساي إرجدي يعني كم بدأ وحنا السعيسي حل ما نصيب وان ويلان واي أو حل ما معنا النقن لكن دولة عبد القاسم صلاح حسن وحنا حريرياشي مدحته يدا إيه هوانك شن يتمنك أكتوبر dadkii waxaan ahaa shirki aaday meesha la yiraahdo Eldoret 15 October shirki ka furmay ilaa 15 October ilaa 2004 oo la soo dhisay dawladda Cabdullaahi Yuusuf waxaan ahaa ergadii halkaas ku sugnayd oo dastuurka iyo sharciga doorashooyinka ansixisa dawladda Cabdullaahi Yuusuf hadana kursi waan ka soo waayay sabab aan ku soo waayay kursi waxaan ku soo waayay حمنت وان لها بيلهان وانو لها قبرهان أو لها لكن وحلا يري دمركا إن بيلها كله أي وحود علي لما سينكر قرص وعقبت الكوبات قبلها الصومالية هاي سب قبله هو بير وهايو ما لها حدود أيجو بيلها الصومالية منه ويكدشان منه ويقولها ويدحان أنا جنبركا بيشان أنا وخد الشيء ما هو مدل نصيب وناك وحلي ناك تانو كرسي قانسين بيش المهد وهاينا للصينية سداس درادد وحن سواي كرسي حل دبانمو والله يقات وحن كسر نقضي دالك الصومالية وسارديه مركز جري أيام كم من نقضي وحن شقة باللابي وزارة دهور مرنت الرمية يدرت يداقة دولة دي هاي عبد الله يوسف وحن كأها ماذا حقيبت علم بارستانها دولتي وعلى اسكو دري عبد القاسم markii laga qaaday Sheekh Shariif la doortay wasaaradihii sidaad u ogtahay wasaaradda arrimaha gudaha baalasheedii waa la jaray horumarinta reemiyigu waa ayada muxuu ahay amnigu waa ayada wax badan ayaa laga cunay dib u heshiisiintu waxa dhan waa waaxiye arrimaha wasaaradda arrimaha gudaha waxaan dib ugu soo noqday wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ka noqday xogayaha madaxa qaybta arrimaha bulshada noqday isla markiiba waxa la iga dhigay hadana agaasimaha horumarinta muxuu ahaa dawlad wanaag iyo xuquuqul insaanka anoo sidii u ah xuquuqul insaanka waa dawladii horta waxaan ku soo dhaqaaqay xasan iyo kala guurkii Sheekh Shariif hadana sidii oo kala la toosta la iga gelay waxay iga gaartay maxaad uga soo kacday dhulka aad joogtay waxay tahay caqabadaha dumarka haystay gow ka tahay dawladda agaasimahaygii iska joogay halkaana waxa loo soo magacaabay 8 agaasime dhismadii dawlad goboleedka Hirshabelle anoo agaasimahan 8 agaasime halkaan la ila soo magacaabay aniga bas ku haray intii kale way ka tageen 9 bilood ayaan waxaan u taagnaa dhisidda dawlad goboleedka Hirshabelle maalintii ugu dambeysay ee kursigan aan qaadanay ayaan ugaaskaygi iyo odayaashayda waxaan ku iri waxaan rabaa in aan qaato kursiga xildhibaanka Hirshabelle
حالي لما أضو وزارة ده الرماها جودها أجاسمك إيه واحد بتاعنا تواصل طلعه شعيل إيه قبل ما هجعله وحويان حالي ديدين هذا كرسي عير ولا عيف كعير اللي بعك عير شباب وحير أمد قريسان ما يكوفي أنت اللي جسوسيا ورقد يديك رعدنا أرقصيه ساسا وحنا كسر نقضي حل بعك حد أنجو وإلهي يقدر جاي قدومي كحجين كلبعض البرلمان كهالشباب وحنا هاي قبل دي الصومالية وجور رئيسي النقطة قدوم برلمان إلهي يقول لي تاس وأنا حصل دوبي وأنا نهلا إن النقطة قدومي كحجين كبرلمان كهالشباب حل بعنا ضيدي قالي جهنا وهي توقتين وحنا كلام هذا النقطة إن مدة إنتان جوجا أفرتان سنة شن يتمن بلاد عمل ayaa waxa soo mareysay inaan noqdo kusmaha madaxweynaha ama kusmaha gudoomiyaha baarlamaanka saddexdii bilood hadda ugu dambeysay 26 June ilaa iyo 9kii bisha October anigu waxaan ahaa kusmaha madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle ahna kusmaha gudoomiyaha baarlamaanka ربا إنا نكوغ درا إنتاس أنا وحنا أبوان ربا إنا نكوغ درا السوق عيا كوغ درا وأن كتري دولتي مركي اسم ويدا بقاتي رسكو وريراني مركي صوماليات إيش كتبوا وريجين وحين محد يدين دالكيني محد يعي محد دون يسان وادين كعد لذا الدقيق دمير حمدي نقرك كدقي دليل هذا دلش شيء جوكتان دمير الآن oo aku doodaan nabad baanu nahay diyaar masana diidaan wixii daawo dhali lahaa wariya dabiibaaya qarankan duqaad ku helay qaranka Soomaaliya rag badan baa u galay qabriga rag baa qaadan waayay gumaysiga quursigii rag baa ka qajilay asaaga qabaan u noqo rag baa soo qaaday calankeena qaaliga rag baa qalin dahaba taariikhda loogu qoray markaas waxa jooga hogaamiye kooxeedyada haddaan qiimayna nimanka hadeer qabsaday qabuuro inay badshaan qasadkoodu yahay qabiilo hogaamintii qarannimo u qaba haddayna qashuucin tawxiidka aysan qirin asayna qoomaminin qaladkii horay galeen qaamuska adduunka maxaa loogu barahay aniga impagaati markaan joogay fiisa iyo waxaa la ii keenay haddii ilaahay ku samo ogol yahay tigid leeyahay tag talyaaniga cidii ka qaadi lahaydna waa koo diyaa markii kursiga la iga qaato raggu iga xoogeen jacayl ay tolkaygu jecel yihiin ay anigana waxaan leeyahay wanka cududayna weynay ciidayda ugu filano qurba joog ma ogoli inaan noqdo waxaan rabaa inaan qaran joog noqdo dhulkayga iyo caanaha iyo geela iyo lo'da iyo hilibkayga aan lagu soo raajin faranjeerka aan ku soo dhimanin oo 100 sano ka hor la qalno freshka inaan cunaan rabaa wax badan aan qabtay waxa ku cadaynaya markii in bagaati oo kale aan ku soo waayay waxaan ka qayb noqday arrimihii bulshada haweenka wax badan aan qabtay waxaan kamid ahaa ururkii haweenka qaranka Soomaaliyeed waxaan kamid ahaa gabdhihii markii xilligii Sheekh Shariif magaalada Muqdisho qaybna laga qabsaday waxaan kamid ahaa gabdhihii ku dhaawacmay ayagoo biyaha iyo caanaha la ordaya ya dalkeena waxa wali ka dhicinayaan ugu dafuran dugsi quraanka iyo iskuulka ay tarmaha dhigteen oo xabaalad duugoodo meydkooda dibadda yaalay hadduu kula dhashay wiilku iyo hadduu kaa fog yahay waa isku kaamid lama jecla gabadha waxaa rabaa inay shaah kariso darin qurxan ninka u dhigto inta ay siisay rabaan laakiin ma rabaan in inta soo garab istaagto xil asagu la siman inuu qaato inay qaato ma ogola marka waxaan isleeyahay hadduu walaalkaa kaa hor yimaado ha xanaaqin waa wax ay ragga Soomaaliyeed ka wada siman yihiin hadduu ina adeerkaa kaa hor yimaado ha xanaaqin waa waxay ragga Soomaaliyeed ka mid yihiin hadda aniga oo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Hirshabeelle wiilal yar kursiga ugu haysta waxay leeyihiin naag dooni mayno haddaan kursiga u baneeyo waxay qabanayaan waxa ma qabanayaan waxaan rabaa marka gabdhaha Soomaaliyeed inaan u sheego bal wada halgamaya haseexanina haystiganin
حق بعد ولادهين حق أياد واحد ولادهين إن دلكينا حلك قبطان مسؤول نقطان وحنا أنا بديه كلام قبله وحيكفي عنيه رجع مركي لفير because هذا أنا قدامي كحين كل بعض أيام شن إيه طبعاً جر أيام وحنا نقضي حلك مدحوينها قبط ولا إيه كلا تجاي هلك تمركوا يكسر بدنيه رجع رجع برا وحنا ليه حاجين عنا تلوين كان نسينا وحيتها كو اسكو كالصونات هذا اسكو كالصونين هير مجارس وخرت وانا كو فرست اسكو كالصونات لابو وإناد بالشلة دقن لهذا وبالشدة أدوه كدلتي قار ويكون معارضي كران لكن قار كمدة وإناد هلي كرت قيب كمدة عاد هلي كرت إن حدي كرسي قاعد ويده حقوسم إن مركز السوق مالبي كوساتات قوسته وكل مات وأنا تصان نقطة هذا قوسته وسيد الغريب كوس لما برهما بقبروا إني دقدقات كران ما يعني بيئة الصومالية وحكوا بيري إني دمر كودي دان حلال كماقة كوس متكستو قروح بدنية متكستو لبسانية متكستو صعب كبر صبر بارس من الجورجا يوشوك تايو صبحي بيكلر كيسة فير إيسا فيرين إيسا لبس كيس أيوة أنا ما أقولين حرو دقاقان مركا وحان ليا كاد الشيء ككل الشيء يكاد الضحضي وسوق كامدة سمر فرعونان السماء أريك هذا شرع هذا ولا قاعد تجاي هلا هرينا أسعد هقوسنا ما أنت هذا ويدا بريه ليس